waalid ma ogtahay maalmaha lagu jiro kulaylku aad buu u badan yahay. waxay sheegaan caruur fara badan inay sanad walba u dhimato kulaylka jira dartii, heat stroke, heat waves waxa la yiraahdo. daraasadda waalida waxay leedahay in ka badan 56% caruurta kulaylku uu dilo waa heatkaan maalmahan arkayno, kulaylkaan maalmahan arkayno waa caruurta ka yar 2 sano. dadka waaweyn marka la eegana waxa uu dilo waxa u badan dumarka uurka la u badan. sidaa darteed waalid marka la eego caruurtu qaabkay u dhintaan waxay yiraahdaan inta badan waxa u badan hooyo adeeganaysa ama aabe waalid baan dhaho oo grocery intay soo iibsatay rabta ilmo inay parking kaga tagto. imagine ilmo yar oo 2 sano ka yar ba waxaad gaariga uga tagaysaa kulaylkan hadda jira waalidow. maxaad u maran ilmaha inuu ku dhici doono? marka waa lagu xidhaa waalidiinta meelaha qaarkood. hadduu bulayska arko waalidkaas waa lagu xidhi karaa. xadhigga waxaa ka daran ilmahaagu inuu dhinto. maxay yihiin marka waxyaabaha lagu garto xilliyada kulaylka ilmahan inuu ku dhacayo heat stroke ama in kulaylku ajirkiisa uu saameeyay? inta badan dadka uu kulaylku dilo waa caruurta. sababta waxa weeye marka la eego the mass surface of their body ama cufnaanta jirkooda uu ka yar yahay dadka waaweyn. sidaa darteed kulaylku inta badan iyagu dilaa marka la leeyahay waalid waxaa laga yaabaa inaad dhayalsato, laakiin runtii markaad la kulanto waalidiin iyagoo caruurtooda si walba u ilaalinayay laakiin garan waaye xilliyada kulaylkan uu dhacayo ee falaadyada qaarkood la fasaxayo ee shaqooyinka qaarkood la fasaxayo, in aad garan weyda ilmahaga inaad ilaaliso runtii waa caqli xumo wey. allah caruurteena ilaaliyo. isku day marka waalid kow ilmaha in aad ka limit garayso ama ka joojiso waxa la yiraahdo outdoor activities. banaanka inay ku soo ciyaaraan ka ilaaliya la yiraahdo caruurta xilliyada u dhaxeeya 11 am to 3 pm waa xilliga kulaylku u daran yahay. xilligaas inta u dhaxaysa ka ilaali ilmuhu banaanka inuu ku soo ciyaaro. kow labo badi waxa la yiraahdo indoor activities. guriga dhexdiisa ha isku eryadaan, kubadda ku ciyaaraan ama meel masjid hadday tahay. indoor waa meel gudaheed aan banaanka ahayn badi. saddex dehydration ka ilaali in jirkoodu biyo la'aan u noqdo. mar walba ugu yaraan 8 koob oo biyo ah ama 8 caag oo biyo ah inay cabi karaan ku khasab. waanu ognahay ilmaha mararka qaarkood biyaha ma jeclo. isku day biyaha electrolyte ku badan yahay iyo waxyaabaha la midka in ay cabi karaan. haddii aad aragto ilmaha oo kaadidoodu ay aad jaalle u tahay yellow, iyada lafteedu waxay caddayn u tahay ilmahani inuusan biyo fara badan cabbin. biyo waa inaad siiso. arrinta kale waxaa la yidhahdaa ilmaha waxaa ku dhici kara markaad aragto inuu kulaylku soo karayo ama heat stroke, dizziness waxaa la yidhaahdo. ilmahu yaro dhacdhacaya, disorientation, jirkiisa iyo caqligiisu islama socdo, waxbaasi ka weak, iyaga oo dhan way tabar daran yihiin. waxaad arkaysaa dry skin, jirkoo qalalay. waxaad arkaysaa activity badan male, physically waa weak oo iska joogaan. waxyaabaha markaad aragto isku day inaad biyo badan siin karto, nasasho badan inay heli karaan iyo wax la midka ah. ha u ogolaanin ilmuhu in ay banaanka ku soo ciyaaraan maalmahan kulaylku badan yahay saacadaha u dhaxeeya 11 am iyo 3 pm. waxyaabaha kale waalid aan rabo inaan sheegno waxa weeyaan runtii marka la soo istaajiyo idaacadda hooyo ilmaheedu kaga dhintay heat stroke hal erebay ka wada siman yihiin. ma moodaynin waqti intaa la eg kulaylku inuu ilmaha dili karo. saasay ku leeyihin. yacni ilmo 2 sano ka yar jira oo ku xidhan kursiga gaariga ood uga tagtay kulaylkan jira, kan iibso saad u leedahay meesha ugu jirto ayuu waqtigu waalidow kugu dheeraanaya. channelkan waxaa la yiraahdaa Waalid Legacy Channel. wuxuu u furan yahay waalidiinta. waxaa loo sameeyay Waalid Legacy waa adiga waalid inaan ilaalino caruurteena caqiidadooda, akhlaaqdooda, amnigooda, caafimaadkooda. maalmahan kulaylka socdana runtii waan aragnaa. sidaa darteed bahda Waalid Legacy Channel waxay jeclaatay inay arrintan aad uga digto. allaha awlaadeen xifdiyo waa u soo ducaynayna idinkuna ilaaliya insha allahu tacaala. fadlan muuqaaladan subscribe dhaha, channelkana share gareeya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.